بسم الله الرحمن الرحيم. مudanayaasha golaha guurtida khaasatan gudida joogtada ah ee halkan maanta noogu yeedhay aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinaynaa. waa yeedhmo dastuuri ah oo mar walba loo baahan yahay inay golayaashii sharci dejinta iyo xukuumaddii inay mar walba iska warhayaan kala war qaataan mar walba xaaladaha dalka ka jira iyo wixii la qabtay. marka aad iyo aad baan runtii idinku mahad celinayaa marka hore. anaguna diyaar waxaan u nahay wada shaqayn joogta inaanu idinla yeelano oo aanu mar walba nasiib wanaag waxaan nala shaqeeyo gudida imika nala jooga dayib oo kamida gudida heer qaran oo soo qoray gudoomiyuhu gudida heer qaran ee abaaraha. marka runtii aad iyo aad baan runtii dhammaantiin shaariyaba halka joogo isnadeyn badan oo hore nala shaqayn jiray aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinayaa dhammaantood. runtii haddii aan soo koobo oon ka hadlo xaaladda hay-adda Nedford. hay-adda Nedford runtii waa hay-adda qaranka u qaabilsan dhinaca aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka ayay u qaabilsan tahay. sanadihii u dambeeyeyna runtii sida aynu ka warqabno dalka waxaa ka jiray dhibaatooyin fara badan oo abaaruhu ay ka mid yihiin. marka waxyaabaha noo qabsoomay runtii si loogu diyaar garoobo hawshaasi oo aynu u yeelano kayd iyo talagal si aynu u yeelano waxaanu dhisnay ilaa 7 bakhaaro waaweyn ilaa 22 7 bakhaaro waaweyn oo gobolada intooda badan aanu ka dhisnay. kolka laga reebo 2 gobol oo aanu iyagana qorshaha noogu jiray laakiin weli aan qabsoomin Sanaag iyo Sool. ilaa Burco way dhisan yihiin, Berbera, Hargeysa, Gabiley saasay u xidhiidhsan yihiin. marka runtii bakhaaro waaweyn weeyaan oo aan wax ku kaydino wixii kolba aynu helo dabadna aanu qaybino waqtiga ay dhibaatadu runtii ay timaado khaasatan abaaraha iyo daadadku mararka ay yimaadaan. waxyaabaha ugu muhiimsan runtii ee noo qabsoomay taasaa ka mid ah xarumihii inaanu diyaarinay, xafiisyadii intoodii badnayd inaanu wada dhisnay, shaqaalihii gobolada 6 gobol ee waaweyn inay dhammaantood ay wada diyaarsan yihiin oo ay wada shaqeeyaan dhammaantood. waxaa kaloo runtii siyaasadihii aanu ku shaqayn lahayn hadday noqoto siyaasadii maareynta masiibooyinka oonu iyadana diyaarinay. waxaa kaloonu diyaarinay contingency balaankii oo isagana diyaarsan una qaybinay gobolada iyo aanu kusoo tababaray gobolada oo dhan. waxaanu samaynay community-ga ilaa iyo in ka badan 250 tababar baanu kasoo samaynay xagga dadweynaha gobolada oo dhan ayaanu hay-ad ahaan ka samaynay muddadaasi. waxaa kaloonu samaynay strategic balaankii oo aanu 2 jeer kii horena uu ahaa from 18 to 23 kan kalena uu yahay 23 up to 27 qorshihii hay-addu ay ku shaqayn lahayd 5 sanadood soo socda oo inu kii labaad imika aynu ku jirno isagana waa diyaarsan yahay waanu ku shaqaynaa. waxaa kaloo runtii dhinaca markaan eego waxaanu dhisnay xarun digniin bixinta ah oo hal dabaqoon ku kordhinay xafiiskayga aanu ku kordhinay qalabkeedii oo dhan runtii aanu serfarkii iyo kombiyuutarradii iyo qalabkii oo dhan aanu dhignay, shaqaalihii aanu u tababaray. magaasiin baanu soo saarnaa bil kasta oo ah xaaladda dalku sida ay tahay guud ahaan bil kasta. wixii dhibaato ahee jirana markaa lagu soo bandhigo. waxaanu qabanaa shir bileedyo hay-adaha caalamiga ah oo dhan aanu u qabanno, subsectorial meetings la yidhaahdo oonu bil walba ku qabanno, xarunteeda aanu ku qabanno. waxaa kaloonu FNSAU ribooddo ay soo ururiso hay-adaha dawligiina ay ka wada qayb galaan iyadana xarunteeda ayaanu ku launch garaynaa iyadana aanu ku qabanaa. waxaanu xidhiir la leenahay hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya humanitarianka waanu la leenahay dhammaantood waananu wada shaqaynaa anagoo mar walba ay ku shaqeeyaan riboodada iyo meelaha aanu u gudbino in ay wax ka qabtaan. marka runtii haddii aan halkaa aan taa kaga tago waxaanu qabanaa maalan sanadihii u dambeeyey sidaynu ka warqabno 2 sanadood ee u dambeeyey runtii abaaro culus baa dalkeena ka jiray. abaarahaasi runtii saameyn nolosheenna iyo xoolaheenna oo nolosheenna ku tiirsan tahay bay saameyn badan inagu yeesheen. ilaa 5 xilli roobaad baynaan helin roobab inagu filan. meelaha qaar wax waa ka da'een laakiin xooggeedu meelo badan baa ayaan roobab aan helin. marka runtii culays aad iyo aad u fara badan bay noqotay. sanadkii 22kii iyo 21ka dabayaaqadiisii
ilaa waqti dhow gurmad unbay noo ahayd oo aanu gobollada oo dhan runtii aanu dhammaantood min bari ilaa galbeed aanu ka shaqaynay tusaale hadda aan siiyo waxaanu qaybinay sanadka ilaa December 23keedii baanu ka soo baxnay gobollada bariga Sool ilaa Boocame ilaa iyo Saaxdheer ilaa iyo Xaysimo dhammaantood waanu wada gaarsiinay baran waanu gaarsiinay waxaanu gaarsiinay dhammaan gobollada Buuhoodle dhammaan gobollada bariga oo dhan 23kii December bay shaqaalaha ka soo baxeen hawlgalkii u dambeeyay 4 gool baanu sanadka 22ga la 4 gool baanu gobollada bariga ayaanu gaarsiinay Togdheer ku jirto Sanaag ku jirto hadii Ilaahay badakeed kule Buuhoodle daad madheer waxoo dhamay ay ku wada jiraan dhammaantood marka waxaanu gaarsiinay gobollada galbeedka iyagana waxaanu gaarsiinay 3 jeer mar afraadkii 2 gobol baanu imika wiigii tagay gaarsiinay oo ah Awdal Salal iyo Saaxil Maroodi Sheekh baa 3 jeer iyo Gabiley iyo meesha la yiraahdo Hawd ayaa wali 3 jeer ku taagan laakiin inta kale oo dhami gobollada dalka oo dhami min 4 jeer baanu ayaanu gaarsiinay oo ka u dambeeyay aanu galbeedka gaarsiinay tirada guud ee aanu gaarsiinay waxa weeyaan 112,764 qoys baanu gaarsiinay muddadaasi ilaa 22 ilaa imika oo u dhiganta dadka ka faa'iideystay 676,548 qof bil raashinkeed ay ka faa'iideysteen marka runtii dhinaca biyaha iyadana waxa la gaarsiiyay iyadoo la kaashanayo hay'ad la kaashanayo gudidii heer qaran oo wada shaqeyn joogta ah aanu leenahay 4 madaxweyne ku-xigeenku runtii hogaaminayo iyo madaxweynuhuba 24,710 booyadood baa la gaarsiiyay gobollada Soomaaliland intii oo u dhaxeeya 40 foosto ilaa 100 foosto halkii booyadba uu yahay xagga biyaha uu yahay waxa kaloo runtii jira oo iyadana sida aynu ka warqabno jira dhibaatooyin ka dhacay shaqaaqadii ka dhacday gobolka Sool baa iyaduna runtii dib weyn nagu haystay culays fara badan taasna runtii dadaal badan baan u galay haday noqoto xukuumad ahaana dhammaan waa laga wada shiray wasaaradihii hay'adaha dawliga ah khusaysa dhammaantood gudi task force baan u sameynay oo hawshaasi runtii joogto uga hawlgala waxa kaloo runtii la gaarsiiyay ilaa 9,534 household ama qoys baa wax la gaarsiiyay dhinaca hay'adaha kolka la eego oo isugu jira cash dad cash la siiyay dad hadii Ilaahay badakeeda ku leeyahay NFI wax la yiraahdo oo food items waxyaabaha aan bacaha ama alaabooyinka weelka waxyaabahaasi isugu jira cashka transferkaasi iyo cunada marka anagu ka hay'adahan runtii waxaanu gaarsiinay 21 bisha waxaan u qaybinay 5 degmo oo 5 tuulo oo kamida gobolka Sool kamida waxaan u qaybinay 1,000 qoys baanu gaarsiinay 21 bishan March waxaanu gaarsiinay tuulada Guumeys 300 qoys oo ay ka faa'iideysteen 1,800 qof Yagoori 300 qoys baanu iyadana gaarsiinay oo ay 1,800 qof ka faa'iideysteen tuulo Samakaab 1,300 qoys baanu iyadana gaarsiinay Cadaybuur tuulo la yiraahdo 100 qoys baanu gaarsiinay 600 qof isugeeyna waxa ka faa'iideystay 1,000 qoys dhinaca tirada dadkana 6,000 qoys baa hal bil raashinkeed aanu gaarsiinay marka si fiican bay dadkii ay u qaateen sawiradoodii iyo telefishinada kolba waa ka aragteen iyagoo dadkii ku fadhiya oo aanu si wanaagsan aanu gaarsiinay qorshahana waxa loogu jirta insha Allah kariim inaanu gaarsiino dhaqso inaanu waxyaabo kale inaanu iyadana aanu u gaarsiino intii kolba awoodeeno ay noqoto iyo meelaha suurtagalka ah ee wax la gaarsiin kara sida aynu ka warqabno runtii roobabkii guugu ilaa 16 maalmood bay imika curanaayeen oo ay roobku u jiray dhulal fara badan buu runtii alxamdulillah rabbil caalamiin oo roobabku ay heleen gobollada intooda badan waa ay gaadheen kolka laga reebo meelo u teelteel ku yahay oo ay kamid tahay hadii Ilaahay ku roon yahay dhinaca maaragtay dhinaca ay kamid yihiin bariga Sanaag oo kale baran iyo dhahariya dhinacaas teelteel buu roobku ku yahay galbeedka Sanaag elf weyn iyo garadag iyagana xogaa teelteel buu ku yahay meelo badan way heleen meelana ma helin sidoo kale dhinacan Togdheer si wanaagsan bay u heleen Sool meelo badan oo kamida roobabku si wanaagsan bay u heleen Sheekh laga soo bilaabo ilaa iyo Salal la geeyana roobab wanaagsan oo roobabku xooggoodii baa dhinaca galbeedka u badnaa oo aad u fiican baa runtii ayaa ka da'ay roobabkaasi runtii
waxay noqdeen kuwo lagu qabowsaday weli daaq weyn may soo bixin laakiin imika arigu ka dhargaya meelo badan oo kamida meelaha qaarna nirgaha iyo xoolaha qaarkood way weylaha yaryar iyo waxbay ka cunayaan laakiin xoolihii waa weynaa lo'dii iyo geelii weli daaq weyni uma soo bixin weli waa dhirtii iyo waxyaabihii kale unbaa imika baxay marka runtii roobabkaasi runtii kolka dhinac laga eego faa'iidadaas oo dhan ayay keeneen oo waxay naga jabiyeen jiilaalkii abaartii taagnayd ilaahay baynu runtii ugu mahadnaqaynaa inuu inoo sii wado inta dhimanna ilaahay idinkii uu gaadhsiiyo roobabkaasi runtii meelaha qaar dhibaatooyin bay u geysteen waxaa ka mid a tuulada la yidhaahdo taalabuur hal qof baa ku dhintay haddii ilaahay ku rooyey 985 ari iyo riye iskugu jiraa ku dhintay 3 geela baa ku dhintay 17 dameer baa ku dhintay waxaa kaloo iyagana uu dumiyey boolice stationkii biyo waxay galeen ilaa 19 store oo stoorladii ama bakhaaradii tuuladu ay lahayda 17 t-shop oo kuwan maqaaxiyaha yaryara iyagana biyaha galay meelaha qaarna waxbay yeeleen floriskaasi marka runtii dad badan ayay waxyeeleeyeen kolka la eego daadadkaasi waana nimco haddana dee dhinac dhibbay ka leedahay saaxil iyadana xagal meesha la yidhaahdo bariga ah muxuu ahaa saaxila iyadana roobab waaweyn baa runtii ka da'ay dad badan bay runtii markaa saameeyeen oo iyaduna runtii dooxyadii iyo meelihii biyo mareyno badan bay runtii ay leedahay sanaag xiis meesha la yidhaahdo iyadana saameyn bay ku yeelatay oo beebabkii iyo ceelkii biyahaba waxyeelo ayay u geysatay roobabkaasi meesha raqas la yidhaahdo iyana sanaag ka tirsan iyana guryo ayay iyaduna ku dumisay marka intaasina waa inta waxyeelooyinka ay roobabku ay geysteen dhowaanta da'ay maanta waxaanu diraynay taalabuuroo kale gurmad baanu u sameynay 150 qoys baanu u diyaarinay oo hadda imika shaqaalihii iyo gaadiidkii hadda lagu qaadayay si ay u gaadhaan oo cunno loo gaarsiiyo dadka dhibaatada u culus ay ku timid marka guud ahaan kolka aad eegto dalku sida kale waa wanaagsan yahay dee dhibaatada sool oo runtii dee dhinaca aafadana ka mida kolka dhinac laga eego ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu inaga qaboojiyo dagaalkaana ilaahay inaga joojiyo annagu runtii mar walba waxaanu ahayn qolyaha ka shaqeeya ee samafal baanu ka shaqeynaa siyaasad kama shaqeyno uma xil saarnin marka runtii 4 jeer baanu gobolka sool oo kale ayaanu gaarsiinay halka ugu shisheysay ee garowe u dhow baanu runtii meelahaanu gaarsiinay ka mid ahaa oo boocamo oo kale meelahaanu gaarsiinay 23 December 4 jeer baanu si gaarana qaar u geynay kalideed gobolka Sool ay marna ay ula sinaayeen oo aanu geynay marka runtii ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu inaga qaboojiyo dhibaatadaas inaga qaboojiyo si dadkaas baahidooda aynu u gaarsiin karno wixii qarankani uu hayo iyo wixii la gaarsiin karaba